aliyeed waxaan ka waraysanayaa maxamed cabdilaahi obsiyo oo siyaasi maxamed cabdilaahi obsiyo arrintaasi isha ku hayay lana socday. maxamed kusoo dhawow barnaamijka. waa mahadsantahay nuuraddiin iyo universal t v aad baa umahadsantihin waa dhawa. ugu horeyntii dowladda federaalka ee kenya ay ku eedeynaysaa dagaalkaasi in ay ciidamada ay fallaagada ku tilmaantay ay kenya soo abaabushay oo ay ka dambeysay. maxaa sabab u ah bay kula tahay in kenya ay ciidamo soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed ay soo adeegsato? bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam. runtii arrintaa hadda muxuu ahaa aad iga wareysanayso iyo dagaalka ka dhacay beled xaawo oo ku taalla xuduudda kenya iyo muxuu ahaa soomaaliya oo shalay dhacay, waxa weeyeen ma rabo inaan muxuu ahaa dee si ciidan iyo arrin ciidanku iska leeyahay inaan ka hadlo ma rabo, laakiin guud ahaan conceptka muxuu ahaa yani dagaalkan maxaa sabab u ah iyo maxaa yani waa maxay sababtu iyo dagaalkuba siduu iigu muuqdo baan muxuu ahaa ayaan wax yar ka odhanayaa. run ahaantii markaan hawshaas muxuu ahaa si yani maaragtay u wajaho muxuu ahaa si toosa, waxa weeye dagaalkaas beled xaawo ka dhacay shalayto runtii aragti ahaan muxuu ahaa waxa weeye wax laga xumaado, wax aada looga naxo oo looga xumaado weeye. waa ayaan daro run ahaantii in yani ciidan ama dad soomaaliyeed soomaaliya ama soomaalida in laysku adeegsado oo muxuu ahaa yani maaragtay ay iska hor yimaadaan oo layska hor keeno arrin aada looga xumaado oo muxuu ahaa aan ku wanaagsanayn soomaalinimada iyo dalka madax banaanidiisa iyo midnaba aan ku fiicnayn ayay arrintaasi aniga igula muuqataa run ahaantii. soomaalidu in qeyb ka mida ay yeesho in iyaga la isu adeegsado oo dowlad shisheeye ay soo abaabusho, maxay arrintaasi salka ku haysaa? arrintaasi waxay salka ku haysaa arrintaasi hore muxuu ahaa dee labada dowladood kenya iyo soomaaliya aad bay muxuu ahaa yani way is soo taraysay, marxalado badan bay soo martay. hadda muxuu ahaa uma baahna in la isaga sheekeeyo, dee xad baa lasoo gaadhay muxuu ahaa in yani labada dowladood xiriirkooguba ku go-o. maxaa sababay? waxa sababay waxyaabahana ka mida. marka waxa weeye dowladda kenya dowladnimadii iyo madax banaanidii iyo darisnimadii soomaaliya waxay ka door biday damac indhala-aan ah oo hadday tahay baddeeda iyo hadday tahay dhulkeeda iyo yani inay muxuu ahaa yani istiraadeen waa barbaabad goosan kartaa. sidaasay udhigan ujeedka kenya way u dambeyn doonaa oo waynoo dambeysaa, laakiin soomaalidu ayada lafteedu inay laba daraf oo iska soo horjeeda oo sida aad sheegtay ay dad ama ay sheegayso dowladda federaalka ay dad shisheeye iyo dowlad shisheeye adeegsanayso in iyagu sidaa isaga hor yimaadaan, maxay sababta intaa leegtaa? sababta intaa leeg wax kale laguma macnayn karo, waa uun dana shaksiya wey. dana shaksi weeye waxaa soomaalida la iskugu adeegsanayaa. maaha dana soomaaliyeed, maaha dana wadaninimo, maaha dana muxuu ahaa yani wax kale lagu sheegi karo. waa dan shaksiya iyo cid kale u adeegid iyo in la kiraysto dadka soomaalida barhki. waa intaas. iyadu inay soomaalidu isu jawaabto oo warbaahinta isaga jawaabto oo iyaga oo dee iyadoo laleeyahay kenya ka dambeysa haddana qolo kale oo soomaaliyeed ay dhinaca kale kasoo jawaabto, taa ka waran iyada? arrintaas waa arrin labaad oo yani aada iyo aada looga xumaado, aada looga naxawi. yani luqadda iyo languageka la isku adeegsanayo muxuu ahaa maamulka jubbaland. anigoo odhan maayo jubbaland waa dhul soomaaliyeed, shacabka muxuu aha jubbaland ku noolina waa dad soomaaliyeed, kuwa gedo ku noolina waa muxuu ahaa waa shacab soomaaliyeed. dhulka gedo iyo garbahaare iyo eriyada xuduudda ku tiirsanina waa dhul soomaaliyeed. wax dembiyahoo ay galeen dhulkaa iyo shacabkaasi ma jiraan, laakiin waxaa dembiga iska galay waxa weye waa maamulka. yani luqadda uu adeegsanaya waa waxay caddaynaysaa uu kaga jawaabay arrinta shalay yani in yani madaxdii ama muxuu ahaa maamulkii jubbaland yani kuwoogii ugu sarsareeyey qaar kamidii inay ku jawaabaan oo ay yidhaahdaan muxuu ahaa waxaana soo weeraray dowladda federaalka ee soomaaliya. yani dowladda soomaaliya ee federaalku
dee cidda ay weerartay waa ayo ma Kenya yani maaragtay ma dal kala ma garanayo. marka luqadaasi waxay caddaynaysaa in yani maaragtay uu dee soomaalinimadii iyo dhulkii Soomaaliyeedba aad bay muxuu ahaa kor uga kacday oo way dhinaca kale ka martay. markaa dee cid dawlad kale kasoo jeeda bay muxuu aha dhawaaq u baxayay, isaga laftiisuna wax aada looga xumaado wey run ahaantii in sidaa Soomaalidu isugu jawaabto. Kenya iyo Soomaaliya aad bay kala fogaadeen oo dee xiriirkii way kala goosteen diblomaasiyadeed iyo midkii ganacsiba. iyadoo taa la ogyahay xilligan ama waqtigan in Kenya ay kusoo beegto cid ay abaabulayso in dagaal ay qaadaan, maxaa haddana ugu jirta bay kula tahay? danta ugu jirtaa waa danta marka horeba ay muxuu ahaa damaca indhala-aanta aan sheegay weeyaan danta ugu jirtaa. muxuu ahaa in hadday bad tahay iyo hadday dhul tahayba dhulka Soomaaliyeed yani waddanka Soomaaliyeed inay badh goosato, yani fikirkaasi de ma aqaan waxa ay ku gaadhay. haddii aan dib ugu yar noqdo taariikh ahaan, ciidanka Kenya hadda Soomaaliya jooga ee AMISOM ka tirsan, AMISOM marka hore AMISOM ahaan kuma iman. ciidankaasi wuxuu ku yimid si invasion oo muxuu ahaa iska gal ah oo yani waddan meel aan cidiba lahayn inuu waddanka ciidankaasi iska galay. laakiin darisnimada iyo walaaltinimada Soomaalidu iyadoo dhowraysa markii dambe waxay iska ogolaatay in ciidanka AMISOM lagu daro oo sidaa ay AMISOM ku noqdaan. laakiin way ka horeeyeen, siday kusoo galeenna waa laga wada dheregsan yahay oo wax laga warqabo oo taariikhdu sheegayso weeye. marka ujeedada ay muxuu ahaa usoo adeegsanaysaa maanta waxa weeye Soomaaliya dee doorashooyin baa taagan oo hadda current ah oo xaaladoodu muxuu ahaa dee ismariwaa iyo isjiidjiid iyo yani arrimo ku lug leh xataa muxuu ahaa yani dhinaca Kenya awgeed ay muxuu ahaa yani weli yani maaragtay dawladda Soomaaliya ay uga dhaqaaqi laadahay in muxuu ahaa ay doorasho ku tallaabsato oo si walba muxuu ahaa ay gogol ugu soo dhigtay, si geed walba ay usoo fadhiisatay. laakiin dee aanay u muuqanin in ay waxaasoo dhani ay raalli gelinayaan, laakiin waxa raalli gelinaya ay tahay wax dawladda Kenya raalli gelinaya in muxuu ahaa in laga doonayo meesha. taasina ma suuro gelayso, dee dhulka Soomaali baa leh, shacabkuna waa Soomaali, madax banaaniduna waa Soomaali. marka muxuu ahaa yani cidda isku dayeysa ee hadda yani ka arkaa xoqaysa dee waxay ka macaashayso ay ka gaadhayso anigu garan maayo. foolxumo un bay ka gaadhi kartaa. watay dantaa aad sheegaysid Kenya ah in iyadu danteeda fushato dadka Soomaalidana ay isku dhufato si aanay dee suuragal u noqonin, dawladda iyo dowlad goboleedka Jubbaland maxaa saaran iyaga ay kula tahay? dowlad goboleedka Jubbaland waxaa saaran dowlad goboleedka Jubbaland first of all waa Soomaali wey, maha Kenya. marka waxa weeye inay u dhaqmaan si Soomaalinimo oo ka waantoobaan yani waxyaabaha yani maaragtay hadda ay ku andacoonayaan. yani dowladda federaalku ee Soomaaliya ee dhexe threat kuma aha muxuu ahaa gobolka dowlad goboleedka muxuu ahaa Jubbaland. dowlad goboleedada kale unbuu ula mid yahay, wax alla wax muxuu u ka duwan yahay ma jirto. aan inagu wax qabsanno oo aan wixiina dhammaysanno oo aan doorashadeena qabsanno oo inagu aan wixiina dhammaysanno ayaa ilaa maanta la laayahay. marka dowladda Kenya dee taas ma aha yani Soomaalida ama maamulka dowlad goboleedka Jubbaland bay arrintu ka soo jeedaayo, iyaga ayay muxuu ahaayeen Soomaalinimo sidaa usu raba maaha ani. dee waxa weeye cid kala waxa daba joogay tixgelinaya ka dambeeya iyaga, taasay tixgelinayaan. laakiin ma tixgelinayaan Soomaalinimada iyo muxuu ahaa iyo wada jirka muxuu ahaa Soomaaliya. tixgelin inay tixgeliyaan baana wanaagsan oo ay Soomaalinimada u soo noqdaan oo ay dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed u turaan. watay Maxamed, ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd si aanay mar dambe dhul Soomaaliyeed iyo magaalo Soomaaliyeed iyo gobol Soomaaliyeed aanay dad Soomaaliyeed isku laynin ayadoo dee la aaminsan yahay in dana kale oo shisheeye ka dambeeyaan? wallaahi horta dee waxa meesha ka socdaa waa wax muxuu ahaa waa anigu marka laga yimaado qadarta yani maaragtay muxuu ahaa aan la odhan karin de yani wuxuu iska qadarun, laakiin dee sabab bay leedahay weynaha ka soo sheekaynay. waxaan ku talin lahaa oo aan odhan lahaa yani maaragtay sida ay ugu yani maaragtay dhimrinayso
dowladda federaalku muxuu ahaa dee maamul goboleedka maamulka siday ugu dhimrinayso ha ugu wado. ta labaad waxa weeye maamulka Jubbalandna inuu ka waantoobo oo uu tixgeliyo ilaaliyo Soomaalinimada iyo dhulka Soomaaliyeed hadday bad tahay iyo madax banaanida Soomaaliyeed hadday territorial integrity-ga Soomaaliya inuu ilaaliyo ayaa muxuu ahaa laga maarmaana hadday bad tahay iyo hadday dhul tahay. waana foolxumayna inagu tahay maanta in yani laba ciidan oo laleeyahay waa wada Soomaali inay isku hor yimaadaan ama la yiraahdo yani intaasaa la qabtay oo caynkaas oo muxuu cid kale adeegsanayso daba joogto. aad baan uga xumahay runaantii wax aad looga xumaadana weey. waxaan leeyahay maamulka Jubbaland si muxuu ahaa daqiiqa oo muxuu ahaa taariikhda ku habboon oo Soomaalinimo oo muxuu ahaa yani wadaninimo arrintaas ha uga fakaraan. luqadda ay adeegsanayaanna ha bedelaan oo luqad Soomaaliyeed ha ku hadlaan. waatay aad iyo aad baad mahadsantahay. waa tahay kaasina wuxuu ahaa siyaasi Maxamed Cabdilaahi Obsiyo oo aan ka wareysanayay sida uu arko xiisadda ka jirta magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo iyo arrimihii ugu dambeeyay iyo eedda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya u jeedinayso dowladda Kenya oo ay sheegayso in ay ka dambeysay arrintaasi. intaas ayaanu daawadayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni dabagalka wararka Universal TV oo aad ka daawanayseen telefishinka anigoo Nuuruddin Cali Joog baa barnaamijka idinla socodsiinayay. dib intaynu kulmi doono aniga ee akhyaarta kale ee igala qayb gashayba waxaan idin siilaynaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.